saxaafadda sharafta leh dhinaca tamarta waxaan leenahay xiriir sii kobcaya oo aan la yeelanay Soomaaliya markabka sahminta nidaamka ee Irish Rice ayaa fuliyay howlo sahmina oo socday muddo 9 bilooda howlahaasi sahminta waxa laga sameeyay aagdan 4465 meel badeed oo laba jibaaran taasoo ahayd arrin cusub oo taariikhi ah marka loo eego jamhuuriyaddanyada waxaan qorsheynaynaa inaan bilowno howlaha qodista laga bilaabo sanadka soo socda 2026 waxaan jeclaan lahaa inaan la wadaago war wanaagsan shacabka Turkiga iyo shacabka Soomaaliyeed jamhuuriyadda Turkiga ahaan waxaan liiskeenna ku soo darnay 2 markab oo cusub oo qodista magacyadoodu waa Siriba iyo Yildirim mid ka mid ah maraakiibta qodista ayaa ka fulin doona howlaha sahminta biyaha Soomaaliya halka kan kalena uu ka fulin doona howlaha qodista gobolka badda madow ku darista labada markab awgeed Turkigu wuxuu noqon doonaa kan dhanka badda ugu awoodda badan ee afraad ee dunida waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay ka baryeena in warkan uu noqdo mid qeyr iyo barwaaqo u leh dalalkeena dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay maalmihii wacnaa way soo socdaan wayna soo dhow yihiin insha Allah